Shukri Maxamuud Yuusuf waa hooyo umula oo hal mar magaalada Garowe ku dhashay 3 caruur ah oo mataana. Hooyadan 3 mataanaha ku dhashay Garowe waxa la sheegay inay ka timid baadiyaha Tuula Jalam ee gobolka Nugaal halkaas ay ku haysato 17 neef oo ari ah. Mataanahan ay mar qura dhashay Shukri waa 2 gabdhood iyo hal wiil waxaana la xaqiijiyay in isbitaalka ay ku umushay hooyadan danyarta in looga leeyahay lacagtii balse markii dambe la damintay waxayna xilligan dulsaar ku tahay qoys ku nool magaalada Garowe. Waxaan la dhahaa Shukri Maxamuud Yuusuf waxaan ka soo jeedaa Tuulada Jalam baadiyaheeda meeshaan Garowena hadda 4 bilood ayaan joogay arrin caafimaad ayaan u imi ilaahay alxamdulillah ilaahay 3 xilmood ayuu isiiyay meesha aan dhakhtarka ahayd aan joogay ayaan ku fooshana lacag badan baa leeyaga leeyahay wiil ayaan damaano qaaday waxa weeye caruurtaas 3 kalena baadiyihii baan uga soo tagay waa caruurtaas hadda war ayaga kama hayo. Qoyska Shukri waxay ka mid yihiin dadkii ay xoolo tirtay abaartii sima ee kal hore dalka ku dhufatay waxaana xilligan u jooga 17 neef oo ari ah oo xataa aysan u joogin wax awra oo ay dhaansadaan. Haddii 17 neef oo ari aan ka imi waxba ima raacaan gaadiid hadda anagu aan leenahay ma jiraan rati reer aan ka soo kaxaysanay ayaan dhaansanay hadda markii aan ka soo kaxay reer 17 neef ku dadka xoolo abaaraha dhaafeen baan ahay ay baadiyaha Jalameed baan deganaa toorka iyaga geesaas iska deganaa marka caruurtan 2 gabdhood iyo wiil weey isku mar bay dhasheen isbitaalka 6 bari baan joognay lacag badan baa leeyahay isbitaalka wiil ayaa damaano qaaday lacagtaas $600 bay gaaraysaa caruurtu way xanuunsanaayeen ashadoonkooda dhacsanaa waxay ahaayeen caruur aan bila dhamaysan bilahooda wax harsanaayeen dhalooyin baa la geliyay waa ka waxay sheegtay hooyadan dhashay mataanaha 3 alla idamkii mooyee inaysan xilligan waxba u hayn waxayna ka codsatay bulshada Soomaaliyeed inay kala qayb qaataan korinta caruurteeda maadaama ayada iyo aabihii caruurtan dhalay ay yihiin qoys danyar ah isla markaasna ay ka mid yihiin barakacayaashii ku xoolo beelay abaarihii isxigay ee dalka ka dhacay. Laakiin caruurta waxaan ku korin lahaa 6 qof ah ayaan muslimiinta wixii awoodaan jecelahay inay wixii awoodaan inay soo caawiyaan lambarkaygana waan sheegayaa 5743 weey xanuunkaygu waa badnaa wax badan meeshaan hadda 4 bilood baan ku noolaa ilmahan hadda wax yar bay joogaan 10 cisho joogaan 10 cisho baan dhalanaya.